سؤال شناد waxaan si toos u weydiin doonaa sidaan ogsanahay Dr. Sharif Usman sidaan ogsanahay CV-da waxay muhiim u yihiin habraacyada ugu muhiimsan ee shaqada ama qofka shaqo doonaha sidoo kale waa qiimeynta koowaad ee shaqo doonaha marka su'aasha waxay leedahay sidee qofka shaqo doonaha loo aqoonsan karaa ama tayada gaarka ah ugu muhiimsan CV-giisa ay ka dhigi karto maxaa astaan u gooni ah murashaxa inuu ku haboon yahay shaqada uu raadinayo marka waxaan isleeyahay haddaan si kale u dhigno qofka shaqo doonaha ama murashaxa sidoo CV ku haboon shaqada uu doonayo u samayn karaa CV-ga aad iyo aad ayuu muhiim u yahay waayo qofka asagoo aanan ku arkin ayaa CV-gaaga u tagaya qaybta ugu weyn oo shaqada lagu helana CV-ga ma ahan ee waa interview-ga ama waraysiga CV-ga laakiin haddii uu fiican yahay wuxuu ku siinayaa fursad aad interview-ga ku gaarto CV-ga marka laba qaybood ayaan fiirinaynaa qayb waxa waaye habka uu u qoran yahay qaybna waxa waaye waxa ku qoran okay tan sahlan aan ku hormaro oo ah maxaa ku qoran CV-gaaga oo ku siin kara fursad lagugu yeero interview haddaad jaamacad ka soo baxday soo qaybta ugu horeysa waxa waaye education levelkaagii iyo courseski aad soo qaadatay inaad muxuu ahaa ama economics ama business management aad ka soo baxday intaas waa cadda laakiin wax kaloo la socda ma jiraan meelaha qaarkood skillskaaga characterkaaga inaad tahay qof dabeecad fiican inaad tahay waxyaabo saas oo kale taa ku qoran qaybta ugu muhiimsan waxa waaye skillska ama xirfadaha aad leedahay iyo khibradda aad leedahay meeshana kuma yaalaan waxyaabaha meesha ku yaallo ugu muhiimsanna waa taas sidii uu u sheegay gudoomiye geedi waxaa la rabaa marka meeshaasita wixii aad ku kabi lahayd oo ka muuqan lahaa yacni haddii la fiiriyo CV-gaaga hal page oo kaleetuu noqonaya so waxyaabaha muhiimka waxa waaye kow inaad isku daydo inaad qaadato koorsooyin yaryar oo xirfadahaaga dhisa ya مثلا economics aad baratay digriga ugu horeeya economics waxaa la ogyahay inuu yahay general economics economist ma tihid weli qofkaasu meel kastuu ka shaqayn karaa laakiin shaqooyinka loo baahan yahay xirfadaha loo baahan yahay hadday noqoto customer service hadday noqoto maxaan ku dhahay sheeg management office management oo kaleeto ama office administration yani xafiis in lagu dhiibo oo xafiiskaaseeto aad maamusho koorsooyin inaad qaadataad u baahan tahay koorsooyinkaas marka ay noqdaan muxuu ahaa xirfado aad leedahay tan labaad waxaa loo baahan yahay inaad ogolaato inaad si volunteer ku soo shaqayso oo aad khibraddaadii meeshaas ka soo dhisto oo waxa kaa maqan waa khibrad inaadan lacag fiirin cid kasta oo kuu ogolaata inaad la shaqayso si full time ama si part time aad ugu shaqayso hay-adaha qaarkood waxay sameeyaan dadka volunteerka ah waxay siiyaan transportation-kooda $50 ama $100 ayay siiyaan laakiin adiga waxaa kaaga muhiimsan lacag haddii lagu dhaho xataa adiga iska bixi inta aad dhisayso khibraddaas cidda aad la shaqaynayso so waa laba arrimood mid waxa waaye koorsooyin yaryar oo ku dhisa oo xirfada ah inaad qaadatid tan labaadna waxa waaye inaad ku shaqaysid volunteer ku shaqaysid oo experience-gaaga aad dhistid midda kale oo ka horeyso oo iiga muhiimsan waxa waaye habka uu u qoran yahay CV-gaaga soomaalida dhalinyarada soomaalida jaamacadaha ka baxda CV-gooda hal standard ayuu u wada qoran yahay waa la kala koobi gareeyay waxaan rabay inaan dhaho waxa u malaysaa in la kala koobi gareeyay ma u malaynaysid exactly waa la kala koobi gareeyay yani haddii
toban qof ay kuu soo dalbato tobanka CV oo ku yimaada isku si ayay u qoran yihiin waxaa jira hab caalami ah ama hab standard ah oo loo qoro CV-yada waa marka ugu horreysay magacaaga magac kooban inuu noqdo magac waxa ugu qoran idinku wada qoran Cabdullaahi Yuusuf Ali Cabdulla Jilibey ay idinku wada qoran afar shan magac waxa u malaysaa 4.5 inaad kulligiin aad rabtiin inaad nin walba inuu jufadiisa meesha ka muujiyo soo horta magacyada soo gaabiya aaday muhiim u tahay magaca qofka iyo magaca aabaha yani hadhowtii waxaad arki doontaa markaad xirfadda shaqada gasho documents badan oo aad buuxin doonto oo magacaas dheer uusan gelaynin boos uma banaana kombiyuutarada marka waliba online lagu buuxinayo applications laba magac bis u baahan yahay ma galayaan inta kale boos looma hayo okay taa marka magacyada in la soo gaabiyo waa muhiim tan labaad waxa waaye magaca hooyada oo aad ku qortay iyadana muhiim ah hooyada maxay ka sameynay meesha soo magaca hooyo laguma qoro CV tan labaad waxa waaye da'daada inaad ku qortay iyadana looma baahna okay in fact khasaare ku keenaysaa inaad da'daada ku qorto yani inaad dhalashada waqtigaad dhalatay 99 oo kale laakiin adinka haddaba leetihiin aan u maleynayo 2005 kii wada dhalateen iyo ka sokay yeah so feere inaad da'daada dhibaatay ku keenaysaa aniga haddaan shaqaale qaadanayo waxaan qaadanayaa qof da'diisa weyn tahay sababtoo oo waxaan bidayaa ama aan rajaynayaa inuu khibrad leeyahay oo meelo badan ka soo shaqeeyay ya qof 23 sano jira ya shaqo ma sii lahayn exactly xaataqaan xaad sameeyay ya okay aniga haddaan rabo lacag in la ii maamulo qof oo 23 sano jiro hadda jaamacad ka soo baxay ma lacagteeda u dhiibanaa okay laakiin waxaa dhici karto feeri haddii aan ogaado CV-gaaga inaad 23 sano jirto hadda qisa dhacdaa idiin sheegaa arday aan macallin u ahaa ayaa master wuxuu u aaday Uganda okay 23 sano ayuu jiraa jaamacadu ka baxay wuxuu ka baxay engineering 23 sano jiraa booliiska loogu yeeray wallahi alcadiim booliiska loogu yeeray waxa la yiraahdaa shahaado false oo wata because adoo 3 sano 23 sano jira shahaado engineering ay ku qaadatay because jaamacadii kaliya 6 sano ah meeqa sano jirta adiga markaa timid jaamacadda gashay ma garatay so da'daada inaad sheegto dhibaatay ku leedahay waa wada yaryartihiin waa idin ogahay yaryaraanta marka dhibaatay leedahay so marka da'daada inay meesha ka muuqato ma aha okay waxaa la rabaa magacaaga iyo adresskaaga haddii aan ku aqbalo meeshii aan kaaga yeeri lahaa emailkaaga iyo taleefankaaga that's it waa dhammaatay hore u gal marka inta kaleeto okay so arrintaasi waxyaabo kale aan rabay inaan sheegaa jiro waa soo gaabinayaa السلام عليكم su-aasha ugu dambaysa nasiiba u yeeshay doctor Shariif Cismaan sidee qofka shaqo doonaha u soo bandhigi karaa awoodiisa xirfadeed inta lagu guda jiro waraysiga sidoo kale haddii uu su'aalaha la weydiiyay jawaabteeda garan waayo sidoo si xeeladaysan ku qancin karaa qofka waraysa dad badan markay su'aasha garan waayo madaxa xogtaa martoo arkaa badanaa بسم الله السؤال ويدي إن أتفهم ويسو لبا وجه أي لا مد وحواي سؤال ويدي جواب تيدا إن أتفهم ويسو مدنا وحواي جواب تنفت تيدا سيد ويدي إن أفهم ويسو هدي سؤال أتفهم ويسو قفك كويدين أي سؤال وحال ربعنا هذه يوعلي ساقوه بسطو ولبا أتراهد سداس مية وجيدا وحي موجيني سا كرتي إنا دلالها وحي موجيني سا إنا تهي قف وحب صدا
ma garatay marna ma loo qaadanayo inaadan aqoonin marka inaad iska hubiso su'aasha waayo haddaadan su'aasha fahmin jawaab khalad ayaad bixinaysaa marka taas waa mid tan haddii aad fahmi weyso يعني جوابتي أد فهمي ويسو أوكي تاس وامدة ugu khatarsan waaye Soomaalida maxay sameeyaan wax uu san aqoonin hadii la weydiiyo qofka Soomaaliga wax walba waa yaqaana ma garat maxay yiraahan indha adayg waa hanti ansarka hortaadu ku sameynaya Soomaha qof shaqo ku siinaayo inaad wax u qajajacayso kaama rabo haddii kale shaqada markii lagu geeyana saasa u qajajacaynayso ma sida ugu fiican waxa waaye inaad tiraahid su'aashaas jawaabteeda ma fahmin yani jawaabteeda ma aqaano inaad tiraahid sidaad u dhahayso laakiin ayaa si qurxoon inaad si qurxoon u tiraahid laga rabaa feere qof wax kasta yaqaana ma jiro adoo hadda jaamacad ka soo baxayna inaadan wax walba aqoonin waa laga filanayaa laakiin waxa la rabaa honestinimo inaa muujisid gabar waxaa jirtay aan ka qaadayay shaqo interview aan ka qaadayay qoraal yar ayaa la rabay inay qorto si loo ogaado luqadeeda markaas waxaan dhahay ma carabi ku galaysaa mise english markaasay tiri midna maxaa jira waxay tiri carabi ilaa dugsi sare aan ku soo dhigtay إنجليشنا جامعة دام كل كتير لكن لبدو ذبح كم قوري كري محاو قادن لهد أوكي لبدو ذبح كم قورت حقيقة واي لكن قف أونستي أيه أنت أي ملاقي لهد أو واحد بدن أو قابدرن أي كيني لهد أحسن إنه ورك هذا عديسته أوكي أرنت كليتو وناكسم حكم إذا وحاسيت هذا أقولني لكن وحنا هاي قدرتي وحنا هاي قف haddii fursad la siiyo si fiican waxa uunan aqoonin dhaqsi u baran karo waxa la yiraahdaa fast learner magartay aan ku celiyo marka haddii aadan aqoonin wax lagu weydiiyey inaadan aqoonin sheeg laakiin haddii fursad lagu siiyo inaad baran karto oo aad dadaal badan tahay ayaad u sheegaysaa muxuu ahaa interviewer okay arrinta kale oo hal abuurka waxaan u maleynayaa horaa loo sheegay hal qodob ayaan rabaa inaan uga faa'iideysto arrintii magacyada dheer aan weli ka hari lahay okay magacyada dheer oo Soomaalida oo maxaan ku raa oo tixanaha ah hadaa fiirisid telefishinada waa fiirsatiin idaacadaha waa dhageysatiin madaxda adduunka magacyadooda fiiriya laba magac oo bis ayuu qof kasta dadka caanka oo dhan fiiri laba magac bis ay leeyihiin okay ad waxa laga yaabaa hadda inaa isleedin ninkan gaalada warkoodu idin sheegaya muxuu ahaa sheeg gaaladan laba magaclayaasha maya asxaabti fiiri magacyadooda Ali ibn Abi Talib Uthman ibn Affan Umar ibn Khattab okay العالم كله sidaasoo aha laba magac isfududeeya wax fududeeya خلاص abtirsiga iska dhaaf waa mahadsantihiin